Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isticmaalka iyo beerashada cinabka ayaa ah mid kumanaan sano soo jirtay, waxaanu cinabku ka mid yahay khudaarta ugu waxtarka badan dhinaca caafimaadka. Haddaba, nooca cinabka ka mid ah ee midabkiisu uu cagaarka yahay ayaa ah mid in badan ka waxtar badan noocyada kale ee cinabka. Isticmaalka cinabka noocan ahina wuxuu dawo iyo ka hortagba u yahay noocyada kala duwan ee kansarka, gaar ahaan kansarka ku dhaca beerka iyo maqaarka sare. Waxaana cinabka noocan ka buuxa maadooyin dawo cajiib ah oo beerka, isagoo ka hortagna beerka uga ah xanuuno badan oo ku dhici kara. Daraasad la sameeyay 2013 waxaa lagu sheegay in cinabka noocani uu ka hortag fiican u yahay xanuunka macaanka, gaar ahaan nooca labaad. Dhinaca kalena, waxaa lagula taliyaa dadka qaba xasaasiyadda noocyadeeda kala duwan inay isticmaalaan cinabka noocan ah. Sidoo kalena, dadka aan had iyo jeer cabbin biyaha jidhkoodu u baahan yahay ayaa lagula taliyaa inay isticmaalaan cinabka noocan ah. Dhinaca kalena, cinabka noocani wuxuu u wanaagsan yahay caafimaad qabka indhaha iyo aragtidoodaba. Sidoo kalena, waxaa lagu sheegay daraasadda la sameeyay 2013 in cinabka noocani uu ka hortago xanuunada ku dhaca carruurta ka yar qaangaadhka.